شان يكون بشيء ديسمبر لو كنت ما نتسمع كلا لا هو صدق إلى ومعلومات أنت عن بيش جوكي مركان بيش تنتهي وحقتني له وزارته مركان له وليه وحقتنا كله إن لم يدري وزارته ضرورة معمول مريض أيضا كلا معمول وكلا دول شقوين كأقبل وحقه رين وين نقصمي وزارتي وأن ندين له إمامه أن تصنع له إجازة محل إجازة مياه كون حبينا استركت وزارة النور الإسرائيلي لو حب اللون إن الله قرآن رئيسي قصر وأيقو الرياء محكمة وحال القرآن يمدي محوها قصر ذلك قصر كثير جوتي وآل القوال هي محكمة الرحمن يكون كذلك قصر رياسي يبدوكي محكمة taliyaha ciidanka asluubta sareeyagaas Cabdullaahi Macalin Cali oo isna ka jawaabayay su'aalo dhowr ah ayaa ugu horreyn waxa uu ka codsaday mudanayaasha baarlamaanka inay ansixiyaan ciidanka asluubta oo uu sheegay in dawladdu ay ka saartay ciidamada dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya isla markaasina aysan helin xuquuqdooda waxaana taliyuhu uu hoosta ka xariiqay miisaaniyadii dhawaan ay ansixisay xukuumaddu ay tahay mid ay ka soo horjeedaan ciidamada asluubtu maadaama uu yiri budgetka loo qoondeeyo uu yahay mid aan ku filnayn ciidamada asluubta maxaabiis ayaa si qalada xabsiga u wadaran su'aashaas aniga ma imusayso aniga waa garsoorka waxa soo mara oo xukun ama garsuulo ku soo mara oo waaran fayl nambarkiisa wada ayaa qabanaa marka wuxuu yiri taliyaha xabsiga haddaan tahay aniga taliyaha xabsiga iyo taliyaha ciidanka asluubta ahay marka kaasna muxuu ahay xildhibaankaas iyo dadkii kale su-aashaas qabantay waxaa ku maacdo in muxuu ahay annagu aan gabagabadii kulanka ayaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka waxa uu ku dhawaaqay in shirka uu xiran yahay hase ahaatee ay sii socon doonaan su'aalaha la weydiinayo mas'uuliyiinta ku shaqada leh arrimaha amniga maalimada Baritaan la isugu imaan doono fadhi kale oo ka dhaco xarunta golaha shacabka Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Channel Muqdisho halka aad warkaas ka daawanaysaan ama barta aad kala socotaan waa London xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga ee Somali Channel guddiga howlgalka abaaraha gobolada Salal iyo Awdal ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Boorama waxa ayna ku dhawaaqeen sanduuq loo furay sidii loo badbaadin lahaa dadka saameynta ba'an ay abaaro ku yeesheen ee Soomaaliya wariyaha gobolada Awdal iyo Salal Cabdifitaax Ahmed Cabdifitaax Yare ayaa warkan ka soo diray magaalada Boorama xafiiska gudoomiyaha gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxaa maanta ka dhacay kulan balaaran oo loogu tashanayay abaaraha ka jira deegaano ka tirsan goboladan Awdal iyo Salal kulankan waxaa ka qayb galay guddiga abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salal ee uu gudoomiye u yahay gudoomiyaha gobolka Awdal waxaana kulankan ku wehelinayo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda ka hortagga aafooyinka Somaliland iyo gudoomiyaha degmada Baki ee gobolka Awdal ugu horeen waxaa madashan ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda ka hortagga aafooyinka Somaliland Axmed Maxamed Geele Dacar wuxuuna sheegay inay bilaabeen howlgalka abaaraha isagoo ugu baaqay dadka goboladani ku dhaqan inay iska taageeraan sidii loogu gudbi lahaa abaarahan taagan abaar baa ka jirta abaartaasi laba loo qaybsantaa iyo baadiyada biyo taymka u daran waa biyaanta waxaana aad halis u ah gobolada Sool سلاك وقيد هوكا يتبدأ وين قيد قشة تصبح في جتة حاضي أمامها حيراناتها كل شرب بدل أو استبيجوا أيام الجري وحنا الجري شتى وسايدون يهاجي الناس أبيعهم قصاد وضبط تعوض السوق لما يرد بك كتير يمكن دقيقة الأباط غير الأرض والسمانية ديجا الحياة أو القلب وهذا هو حق الصعيد بيدعم فالعجب الحنسي وحنا إمكان شفتين جيبوتي الصبح وكان قلب فيه وحكم على قاسمي بيلي وسعد معناتي بيها معناتي دوي إن مشي كاسي إن رفيق جامعة الحل بيدعم الصعيد أي ديجا كم بنك بور مقيمتي السلام دماغ الدرا ويرد كل راي بالغير
biyo gelaya kulkuwa wadamaya qaanuunaya kulli sidiyaasha intii soo martay baa ka joogta annagu sawirka waxa ku haynaa dabiiqayhiin halkaas iyo biyo dhaamin ka soo foolay waxaa sidoo kale madashan ka hadlay oo guddiga abaaraha warbixin ay ka dhageysteen duqa degmada Baki ee gobolka Awdal Barre Jaamac Yuusuf wuxuuna ka waramay xaaladda abaareed ee degmada Baki iyo tuulooyinka hoos yimaada wuxuuna yiri abaar baa jirta badan taasi oo ay sababtay xilligii karanta aan roob ku diin garaacdii dawladda aan roob diin iyadoo taasi jirto oo dadka xoolo dhaqatada oo ay walwal badan haysto oo biyahayn walwalaan biyahayn iyada biyo weelada degmada oo dhib kama jirto degmad buuraley oo biyo laakiin xagga cuntada xoolaha ay walwaladan ka jiro ayaa sanadkii hore dabayaqadiisii bishii December qaboobihii dhacay ayaa isaguna wax badan sababa haddii ay jiraan in meesha ka saaray xoolihii buu noo ku dhacay dadkii buu ku dhacay beerihii buu ku dhacay anu waxaan arki jiray muxuu ahaa marka qaboobahaasi u dhaco ama dee baan u naqaanaan geedgaabka buu guri jiray iga waxaad arkaysaa liin macaantii oo maxay kuma arki jiraan haddaanu baarkan ama dee geedgaabka weerar buu guri jiray sida galleyda tamaadhada samarka waxyaaba noocaas sidoo kale madashan waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Daahir Cabdalle wuxuuna sheegay inay fureen sanduuq loogu talagalay badbaadada dadka ay abaaraha saameeyeen wuxuuna yiri dhibaatooyinka noocaas ah inagu soo foolay ilaahay naga soo gaaro waxaan leenahay inagoo ilaahay baryayna oo raxmadda Alla sugayna haddana intii bilaaban kula awoodiisa inaynu taxadirka iyo dadaalkeena si sameysano ayaa muhiim meesha taala bilaana ku dawska camba toos gargaara ama ku noqoto dibadeed gargaar dibadeed noqoto ama ku gudihiisa noqoto ana bilaana fay si taas u gasho waxaan ka warramay in account laga furo bankan boorana oo qof walba uu heli karayo account-ka ku dhigo waa markii labaad ee magaalada Boorama uu ka dhaco kulan noocan oo kala ah oo loogu hadlo sidii wax loogu qaban lahaa dadka saameynta ku yeeshay abaarahan ka taagan goboladan Cabdi Fataax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama iminkana wararkii caalamka dhawaanayay ahayd markii dawladii madaxweynaha wadanka Tunisia Zine Al-Abidine bin Ali oo muddo 23 sano ah hayay majaraha talada wadankaas oo aysan wax doorasho ay ka dhicin ay rideen dadweyne ku soo banaan baxay shacabka wadanka reer Tunisia ayaa maanta ka cabanaya in ra'iisul wasaaraha wadankaas Maxamed Ganuuchi uu ku dhawaaqay dawlad cusub oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah raggii hore ee iyagu la shaqeyn jiray madaxweynaha majaraha talada wadanka laga riday waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dhaqaalaha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo laba wasiir oo kale oo uusan magacaabin ay iyaguna jagadooda haysan doonaan sidoo kale Muammar al-Gaddafi oo madaxweynaha ama hogaamiyaha wadanka Liibiya ee dhacay waqooyi galbeed qaaradda Afrika ayaa sheegay inuu aad iyo aad uga xun yahay in laga rido talada wadankaas Zine Al-Abidine bin Ali oo uu ku sheegay inuu wali yahay madaxweynaha xaqa ah ee wadanka Tunisia iyadoo ay soo ifafbaxayaan in Gaddafi qudhiisu uusan waxba ka duwanayn oo uu yahay nin tan iyo 1969 markii uu qabtay majaraha talada wadanka Liibiya aysan wax doorasho cadaalad ama dimuqraadi ay ka dhicin dhanka kalena magaalada Tel Aviv ee wadanka Israel wasiirkii gaashaandhigga wasiirkii beeraha wasiir ku-xigeenkii beeraha iyo wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga iyo wasiir ku-xigeenkii warshadaha ayaa gabi ahaanba iscasilay kana baxay xisbiga Labour-ka ee haya majaraha talada wadanka Israel beesha caalamka iyo bariga dhexe iyo Mareykankuba waxa ay eegayaan halka ay ku dambeyn doonto xukuumadda wadanka Israel oo iminka iyadu liiqliiqanaysa halugna ku taagan waxa uu ku dhawaaqay wasiirkii gaashaandhigga maanta saaka gelinkii hore ama aroortii iska casilay jagadaas isaga iyo asxaabtiisuba in ay ku dhawaaqi doonaan xisbi cusub oo la magac baxay Xorriya ama Independence Party
waddanka Haiti ee dhaca Latin America ee sanadkii hore ay sida xun u aafeeyeen dhulgariiradii dabajooga ahaa ee ka dhacay oo in ka badan nus milyuun qof ay ku nafwaayeen ayaa maanta waxa ku noqday madaxweynihii muddo 25 sano ka hor xukunka laga tuuray. Jean-Claude Duvalier oo loo yaqaan Baby Dog President ayaa dib ugu noqday waddanka Haiti. madaxweynaha ayaa 25 sano inta badan waxa uu ku noolaa magaalada Paris ee waddanka Faransiiska iyo wadamo kale oo uu tarxiil ahaan ugu maqnaa. sanadkii 1986 ayay ahayd markii inqilaab aad u foolxun oo dhiig ku daatay iyo banaanbaxyo rabshado wataa ay Jean-Claude Duvalier ka tuureen majaraha talada waddanka Haiti. hadduu eebba idmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid la mid ah waa anigoo Cabdullaahi Xuseen Maariya oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.